السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan filayaa inaad wada fiicantihiin dhammaan maasha Allah. Waxaan dhiganaynaa synonym hadda ka hor laba cashir ayaan ka soo qaadanay. Synonym waxaan dhahay synonyms waxaan dhahay waa erayo isku macno ah. Yani erayo macnaha ka siman ama yani erayo macnahoodu uu isku soo dhow yahay ayaa waxaa la yiraahdaa synonym. Synonyms marka waa plural waa jamac waa. Okay? Yeah, synonyms marka waa erayo. Are we together? Yeah, so marka a synonym is a word that means exactly waa sida yani ugu saxsan or nearly ama u dhow the same as another word. Yani waa erayo macnahooda ay isku mid yihiin exactly waxba aysan ku kala duwanin or nearly ama macnahooda uu isku dhow yahay ayaa waxaa la yiraahdaa synonym ayaa la yiraahdaa. Marka faahfaahintan muhiim maahan. Waxa aan baranayna ayaa waxay yihiin erayadani sida loogu dhawaaqo number 1 oo in aan saxno dhawaaqooda pronunciation is so important because whenever you pronounce the word erayga marka aad ku dhawaaqdo ayuu qofka aad la hadlayso uu ku fahmi karaa sida saxda aad ugu dhawaaqdo. Haddii sida saxda aad ugu dhawaaq weyso hadaba qofku wuxuu ku leeyahay kuma maqal ama asaas noocaas camal dhagta ayuu taagayaa. So marka dhawaaqida waa so important aad ayay wanaag maartay mar walba loo rabaa in maartay aan carafkeena aan u saxno insha Allah. Marka okay erayga ugu horeeya waxaa la yiraahdaa attractive waxaa ka soo horjeedo oo macnahoodu isku mid yihiin appealing. Okay? Attractive waxaa la yiraahdaa soo jiidasho. Okay? Yani wax ku soo jiita ayaa waxaa la yiraahdaa attractive. Okay? Yani wax ku soo jiito. Appealing na sidoo kale waa soo jiidasho. Are you together? Yeah. Haddaan dhaho you are so attractive haddaan ku dhaho yani waxaan ka wadaa adiga soo jiidasho ayaad leedahay. Yani qof soo jiidasho leh ayaa tahay. You are so attractive today. I don't know what is wrong. You right? Yeah. يعني maanta aad ayaad yani soo jiidashadaadu maasha Allah waa. Okay? Appealing haddaan ku dhaho you are so appealing today. Yani maanta soo jiidasho ayaad leedahay. Right? Good. Yeah. Attractive maxay macnaha ka siman yihiin appealing. Good. Accomplish, achieve. Okay? Accomplish, achieve. V das ina ku dhawaaqdo waa muhiim. Achieve hadeen F ha u dhawaaqin. Okay? V inaad eraygaas ugu dhawaaqdo waa muhiim. Achieve. Are we together? Accomplish waxaa la yiraahdaa yani in aad wax aad yani kasal gaartay ama aad dhameystirtay. Yani wax marka aad hawl ku taalay aad dhameystirtay ayaa waxaa la yiraahdaa accomplish. Okay? Tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa I have accomplished my job or I have accomplished my work. Yani shaqadaydu waan dhameystiray. Achieve waa sidoo kale waa wax aad dhammeystirtay ama wax aad yani ka sara gaartay. Yani meesha aad rabtay. Okay? For example, I have achieved my goal. Okay? Yani waan ka sara gaaray riyadaydu. Right? Yani qofku waxa jira wax uu ku haminayo oo rabo inuu noqoto. Tusaale ahaan haddaad tinaa madaxweyne noqoto waxaa leedahay camal I have achieved my title being a president. Right? Yani waan ka sara gaaray yani wixii aan ku haminayay. So marka waxay noqon kartaa eraygaanu wax aad yani aad ka sara gaartay oo wixii aad ku haminaysay in aad gaartay meeshii aad rabtay ama in wax aad dhameystirtay wax ku yaalay aad dhameystirtay. Labadaba waa loo adeegsan karaa macna ahaan. Accomplish, achieve. Yani wax aad dhameystirtay ku yaalay iyo wax aad gaartay oo meeshii aad rabtay oo aad gaartay. Labadaba waa dhix kartaa. Good. Admit, confess. Fa iyo V labadaasna kala saartid muhiim waa. Admit, confess. Admit waxaa la yiraahdaa isdhiibitaan. In isdhiibto. Okay? Yeah. Admit. Confess no sidoo kale. Confess no isdhiibitaan. Haddaan ku dhaho you have to admit your mistake. You have to admit your mistake.
waxaan ka wada waa in aad qirato qaladkaagu admit marka yani qalad baad samaysay welina waa sii murmaysaa marka waa in aan ku dhaho you have to admit your mistake because it is you who have done the mistake qaladkaagu waa inaad qirato maxaa yeelay adiga ayaa sameeyey so admit waa isdhiibitaan inaad gacmaha taagato ama inaad wax qirato ayaa waxaa la yidhahdaa admit confessna waa ku micno admit iyo confess isku micno okay you have to confess what you did waa in aad qirato waxa aad samaysay confess admit confess together waa laba eray oo maartay macnaha ka siman good alike same alike same alike same alike waxa la yiraahdaa wax isku eg okay wax isku eg oo isu soo shabaho ayaa waxa la yiraahdaa alike same na waa wax isku mid ah right wax isku mid ah wax isu soo shabaho right yeah ayaa marka alike same okay yeah haddaan ku dhaho you give me the same pen waxaad isisay qalinkii asaga ahaa ayaa isisay qalin duwan ayaan rabaa I need a different one qalin ka duwan ayaan rabaa okay same yani waa wax siman wax isku mid ah alike wax isu soo shabaho so marka labadan eray marka micnahoodu isku mid ma aha laakiin micnahoodu isku soo dhow yahay alike wax isu soo shabaho same wax isku mid ah right so waad dareemi kartaan marka micnaha waa laba eray micnahoodu uu isku soo dhow yahay right aytigeeda alike wax isu soo shabaho right yeah you look alike haddaan ku dhaho you too labadiina you look alike waa isu soo shabahdaan muuqaal ahaan oo isku egtihiin right yeah you too labadiina you look alike so that's why sababaha aan jumlooyinka aan u adeegsanaya waxay tahay inaad arki kartaan ereyga sida loo isticmaali karo asagoo jumlo ku jiro right si aad u iloobin so marka walba aad bay u fiican tahay ereyga in aad jumlo aad dhex geliso oo jumlo aad u samayso si ereyga aad u iloobin laakiin ereyga qaleel ah haddaad tiraahdo waan xifdinayaa wuu kaa dhumayaa marka aad bay muhiim u tahay inaad jumlo samayn karto ereyadani together so that ay sameynahood aysan kaaga dhuman alike marka you look alike labadiina waa isku egtihiin ama waa isu soo shabahdin right yeah same maxaana waa wax yani isku mid ah yeah yani same okay good assist help assist help assist waa caawitaan help waa caawitaan right yeah yeah assist me with your pen qalinkaaga igu caawi help me with your pen qalinkaaga igu caawi right so markaas jumladii isku macno waaye laakiin laba eray ayaa kala isticmaalo kala duwan laakiin macnihii hal waa assist me with your pen qalinkaaga igu caawi help me with your book buuggaaga igu caawi right good awful eedan waxa u dhawaaqaysaa oo ahaan awful man eraygaas inaa u dhawaaqdo waa qalad waxa u dhawaaqaysaa awful yeah right awful terrible okay terrible awful waxa laga wadaa wax naxdin leh right yeah it is awful you know the situation is awful waa wax naxdin leh terrible waa wax naxdin leh right ayuu together sidoo kale waxay noqon kartaa qalad wax qaldan it is awful yani waa wax qaldan oo maartay aan fiicnaan waxa adeegsanta awful terrible sidoo kale waxa adeegsan kartaa wax qaldan oo aanan fiicnaan okay it is terrible situation xaaladdu way qaldan tahay right yeah waxa kale oo adeegsan kartaa macna kale ay leedahay waxay tahay naxdin wax ka naxiyay waxa dhici kartaa it is awful yani wax iga naxiyay oo naxdin la argagax right terrible sidoo kale naxdin good begin start begin waa bilaabid okay start waa bilaab sidoo kale okay yeah who will begin for us the conversation haddaan dhaho yaa inoo bilaabayo wada sheekeysiga who will start the conversation yaa bilaabayo wada sheekeysiga are we together yeah begin marka waa bilaaw start waa bilaaw big large are we together yeah big waxaa la yiraahdaa yani wax weyn oo ballaaran ayaa waxaa la yiraahdaa big yani wax weyn large okay yani wax weyn are we together yeah big large yani waa wax weyn okay yeah
your head is big madaxaagu waa weyn yahay right yeah your head is large or your shoulders are large garbahaagu waa weyn yihiin your shoulders marka aan jamac ka dhigo shoulders ay garba ay yihiin aan isticmaalay ism isticmaalay waxaan isticmaalay marka verbka oo plural ah your shoulders are large okay garbahaagu waa ay weyn yihiin right are you together okay good buy purchase okay buy waa iibsasho in wax soo iib waa iibsasho okay purchase sidoo kale waa iibsasho okay yeah I want to buy a book or I want to buy a shoe okay I want to purchase a cake or I want to purchase maybe a sandwich okay I'm cunto soo gaartaa I want to purchase a pizza okay no cuntada kamid ah are you together so buy waa iibsasho purchase ayaa ku macno ah sidoo kale oo ah iibsasho okay I want to purchase clothes harayna soo iibsado dhar I want to buy so marka yani ereyada waxay ka caawinayaan in aad maartay hal erey mar walba aad adeegsanin laakiin aad adeegsan karto marmar ereyo kale are you together yeah buy purchase buy waa adeegsan kartaa purchase waa adeegsan kartaa labada waa isku macno are you together good and finish and waa dhamaad finish waa dhamaad okay yeah and waa meel kama dambeyn wax ka dambeyn ma finish okay yeah the end waa dhamaad the finish okay yeah finish waa dhamaad enormous are you together enormous huge are you together and ereygan huge iyo enormous waxay kaloo isku soo dhow yihiin macna ahaan big and large laakiin waxay uga duwan yihiin kuwan enormous iyo huge waa wax weyn oo quwad leh waxa adeegsan kartaa enormous are you together yeah wax markuu weyn yahay haddana quwad uu leeyahay waxaad leedahay enormous ama huge okay tusaale ahaan the elephant is enormous or the elephant is huge the elephant is huge marodigu waa weyn yahay so marka weynidaas waxaad ka wadaa weyni quwad ay ku jirto kaliya ma ahan big man yani ma dhigi kartid the elephant is big ma dhigi kartid ereyga saxda ah oo aad u adeegsan karto markaad marodiga aragto inaad tilmaanto waxaad leedahay huge ama enormous ay together ereyga saxda ah haddii aad tiraahdo big ma xumo laakiin waxa uga fiican inaad adeegsato ereygaasi ayaa aad u keenaya the elephant is huge marodigu waa weyn yahay waa weyne quwad raacdo yani waa weyne quwad maartay isla socdaan ay together ayaa like wax marka aad rabto in aad tiraahdo wax weyn in aad tilmaamayso big adeegsanaysa ama large ay together enormous huge good fast quick يعني waa dhaqso yani dhaqso waa quick soo kale waa dhaqso okay yeah fast waa dhaqso yeah degdeg quick soo kale waa yani waa dhaqso yeah fast quick good fool idiot fool waxa la yiraahdaa wax doqon ah ayaa la yiraahdaa fool yani wax doqon ah ayaa waxa la yiraahdaa fool oo maskaxdiisu ay aad u liidato ayaa waxa maarta dhihi kartaa fool okay yeah idiot soo kale waa yani qof doqon ah okay yeah you idiot hadan ku dhaho qof iyo doqonka ah waa you are idiot hadan ku dhaho waxa tahay qof maskax aan lahayn oo baabah ah yeah you together idiot hadii qof uu ku dhaho hadaba qofkaasi meesha ugu dambeys aad iyo aad ayuu ku bahdilay fool soo kale waa maartay qof maskaxdiisa markay eber tahay waxa la yiraahdaa fool doqonnimo enjoyment fun enjoyment waxa la yiraahdaa damaashad in maartay ad soo damaashad okay I have enjoyed enjoyment okay fun sidoo kale waa damaashad ama waxa kale oo adeegsan kartaa fun sidoo kale shactaro waa dhihi kartaa enjoyment waa shactaro waa dhihi kartaa damaashad waa dhihi kartaa fun okay waa isku mid damaashad ama shactaro okay yeah you made a lot of fun
waxaad samaysay shactiro tira badan. Okay, yeah, good. Enjoyment, fun, good. Garbage, artaas waa silent. Garbage, artaasi laguma dhawaaqayo. Garbage maahan, waa garbage. Trash, garbage, trash. Garbage waxaa la yidhahdaa meesha wasaqda lagu daadsho. Okay, ama meesha qashinka la geeyo ayaa waxa la yidhahdaa garbage. Trash sidoo kale meesha wax qashinka lagu turo ayaa waxa la yidhahdaa garbage. Garbage or trash. haddaan ku dhaho take this dirt to the garbage, wasaqdaani qaad. Dirt waa wasaq. wasaqdaani qaad gee meesha maartay qashinka lagu daadsho. Okay, garbage. Garbage iyo trash waa isku mid. Aytigeeda badana trash mooga inaad telefoonka ku aragtaan markaad wax dhileed garan rabtid meel baa jirta uu ku soo qorayo trash inaad aragtaan mooga wax baad dhileed garanta trash. So marka wixii aad tirtirtay meesha qashin qofka ku tul camal waa. Okay, garbage ama trash waa isku mid. Gather, collect. Are you together? TH taas oo ku dhawaaqaysaa. Gather, collect. Gather waxaa la yidhahdaa aruurin. Inaa wax soo aruuriso, isku keento. Collect sidoo kale waa aruurin inaa wax isku keento. Okay, haddii aan ku dhahay gather all those books, soo aruuri buugaagtaas oo dhan. Collect all these books, buugaagtana soo aruuri. So gather waa isku keenid inaa wax soo aruuriso, wax kala firdhisan oo kala meelo kala duwan yaalaan inaa isku keentid ayaa waxa la yidhahdaa gather. Collectna waa la micno inaa wax soo aruuriso. Okay, present, gift. Okay, present waxaa la yidhahdaa hadiyad. Okay, waa hadiyad. Gift waa hadiyad. laakiin present macno kale ay leedahay. waxaa kaloo present macnaha kale ay leedahay. madaxweyne maya madaxweyne maahan. madaxweynaha waa president. dhiiba gelisa aad way isku soo ogyihiin macnaheeda ma dhiiba kala duwan yihiin. present macnaha kale ay leedahay ayaa wuxuu yahay xaadiritaan, inuu qof xaadir u yahay. Okay, are you present? adigu xaadir miyaa taa ma joogtaa waa. Okay, present xaadiritaan inuu qofku uu xaadir yahay waa adeegsan kartaa. aytigeeda waxaa kaloo marka hadda macnaha aan present ula jeedno ayaa wuxuu yahay marka aad haddaad aragto gift oo hadiyad ah, haddaba presentigan waxaa loo adeegsaday hadiyad ahaan. aytigeeda present, hadiyad, gift. laakiin present ayaa waxaan dhahay waxay kaloo leedahay macno kale ka duwan macnaha hadda aan u adeegsanay oo hadiyadda ah. present xaadiritaan. waxaa kaloo ka soo horjeeda present qofku markuu maqan yahay maxaa leedahay absent uu maqan yahay. Right, excellent, saan u dhawaaqa fiir. excellent maahan, waa excellent waa wax heer sare ah. good waa wax maasha allah. labadan eray micnahoodu isku mid ma ahan laakiin micnahoodu isku dhow yahay. excellent waa wax heer sare ah. good waa wax u soo dhow. excellent ayay u soo dhowdahay laakiin but waa wax sidoo kale wax fiican waa. Right, wax fiican.